sanadihii burburka kadib waxaa isbedel weyn ku yimid sida waalidka Soomaaliyeed ula dhaqmaan waxbarashada carruurta gaar ahaan midda diinta Islaamka taasi oo ka xog badatay barashada aqoonta maadiga ee lagu shaqeysto. Haddaba maxaa sidaas sababay? sababta ugu weyn ayaa ah inay waalidka Soomaaliyeed ka doorbideen barashada cilmiga maadiga si ay bari naftiisa uga anfaco iyo nafta kale oo mas'uul ka noqon doono. Ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku ahaayeen ilmuhu markuu 5 jir yahay in loo bilaabo barashada Quraanka Kariimka taasoo furo u ahayd barashada cilmi kasta. waxaana waalidka Soomaaliyeed oo ahaa mid ilmihiisa ku kontrolo waxbarashada Quraanka Kariimka sida ay xasuustaan inta burburka kortiisa dhashay gaar ahaan kuwii dhashay 90kii. haddaba 90kii ilaa 98 ayaa wuxuu ahaa xilligii oo sii yaraanayay in xoog la saaro barashada Quraanka Kariimka. ujeedkana ma aha inaan leenahay guud ahaan dadka faraha waxay ka qaadeen barashada Quraanka iyo akhrintiisa, balse waxaa hoos u sii dhacay dadka u dareera barashada Quraanka oo ah aayadaha Alle ee adduunkan ku kala socda, taasi oo u baahan in xoog la saaro. sidoo kale aan u mahadceliyo waalidiinta qaar oo u ogolaatay carruurtooda in ay xoog saaraan barashada aayadaha Alle oo ay mid waajib ku tahay qof walba Islaam ah. Quraankeena waa iftiin u yimid adduunka oo dhan hore iyo dhammaadba. dadkan waxaa waajib ku ah in ay xoog saaraan barashadiisa. haddaba muuqaalkan waxaan ku qaadanaynaa fadliga uu leeyahay akhrinta Quraanka Kariimka. intaan u gudan galin muuqaalkan waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid, sidoo kale gambalelka aad furtid si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo dhigi doono. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka yeelay akhrinta Quraanka Kariimka inay ka mid tahay camalada ugu fiican, kaasoo qofkii akhriyo oo helaya khayraad fara badan iyo faa'iido aan la soo koobi karin. waxaana daliil noo ah Allah ayaa Quraankiisa wuxuu ku leeyahay in hada al-Qur'aan yahdi lillati hiya aqwam. Quraankaana wuxuu dadku ku hanuuniyaa wadada midda ugu toosnaashada badan. sidoo kale rasuulka ayaa waxaa laga wariyay inuu yiri iqra'u hada al-Qur'aan fa innahu ya'ti shafii'an li ashabi yawm al-qiyaamah. Quraankan aqriya fa innahu ya'ti shafii'an li ashabi yawm al-qiyaamah. maalinka qiyaamo wuxuu ugu maanaa qofka aqrinaya inuu u shafeeco qaado. fadliga uu leeyahay akhrinta Quraanka Kariimka. qofkii barta Quraanka macal fasladiisa wuxuu faham balaaran ka haystaa nolosha iyo koonka aan ku noolnahay. Quraanku wuxuu si faahfaahsan u qeexaa mas'uuliyadda ay saaran tahay rag iyo dumar, wuxuuna suuliyaa walaaca, cabsida, cariiriga nafsiga, khuraafaadka, murugada iyo hami adduunyo oo idil. Quraanku wuxuu ka dheereeyaa waxyaalaha shubahaadka oo dhan, wuxuuna ka ilaaliyaa xumaha oo dhan. Quraanku wuxuu hagaajiyaa xiriirka iyo la macaamilka ka dhaxeeya qofka iyo dadka kale. Quraanku wuxuu kordhiyaa kalsoonida oo ku qabo naftiisa iyo rumaynta qadarta Alle. Quraanku wuxuu qofka ka difaacaa weerarada shaydaanka oo ku haya qalbiga bini'aadamka. Quraanku wuxuu kordhiyaa kalsoonida adoonka oo ku qabo Allah, wuxuuna xoojiyaa xiriirka ka dhaxeeya adoonka iyo Allah. quraanka ayaa laga helaa xasilooni iyo deganaansho. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. kooyi Allah iyo rasuulkiisa rumeeyeen qalbigoodana ku degay dhikriga Allah. kooyi dhikriga Allah kaliya ayaa dejiyo qalbiga. akhrinta Quraanka Kariimka waxaa ku jira ajar aad u fara badan aan la soo koobi karin. rasuulkeena calayhi afdal salaatu wassalaam wuxuu leeyahay qofkii hal xaraf ka akhriya kitaabka Allah wuxuu helayaa hal xasano. halkii xasano waxaa lagu dhufanayaa 10 la mid ah. idinma lihi alif laam mim inay xarf u taagan tahay, balse alifka kaliya ayaa wuxuu u taagan yahay xarf. sidoo kale laamkuna waa xarf, mimkuna waa xarf, taasoo micnaheedu tahay qofkii akhriya alif laam mim inuu helayo 30 xasanaad. daawada ka waran qofkii maalin kasta ka akhriya Quraanka jalaad ama juz ama suurad ama aayad, imase xasanaad ayaa is leedahay inuu helayo maalin kasta? run ahaantii maaha waxa aan soo koobi karno. ugu dambeyntii Quraanku waa daawo iyo naxariis. allow qalbigeena wehel ugu dhig.